ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno dhegeystayaasheena ee naga dhegeysta dunida dacaladiisa maalin walba sabti ah wajada 88 ama barta facebookaba Soomaali Weyn Radio TV aan kaga dhex baxo waraysiga doctorka iyo Axmed Faxwa iyo maanta iyo isku duuradaha barnaamijkaba maadaama uu wari farqanka farsamada cali soo naga maqan yahay wali Axmed ayaa labada isku haya soo Axmed insha Allah aad iyo aad ma santahay Yalis وكشنكتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أنا سندق سيال ملك سأجوكتان وبرنامج عصب وهاتن كصوبير راديو سومالي وين وهات كدق سنتون تان حلقة نوكله برنامجك wuxuu ku saabsan yahay bara cudurkaaga waa barnaamij caafimaad oo inta badan uu soo jeedin doono Dr. Maxamed Xaashay oo bixi doona haduu eeba idmo bil kastaba isbuuceeda koowaad ama sabtiga koowaad bil kastaba haatana noqon doonto bishaan May isbuuceeda koowaad sabtigeeda koowaad oo ay ku aadan tahay maanta bisha taariikhda ay ku aadan tahay 6 May barnaamijkeenan bara cudurkaaga maanta waxa uu Dr. Maxamed Xaashay uu kaga hadli doonaa cudurrada ku dhaca dheefshiidka Dr. waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkaani bara cudurkaaga bismillah salatu wassalamu وهنا الحمد لله وحال ما هذا راديو Soomaali Weyn oo runtii ku dadaala inay arrimaha bulshada xooga saaraan marka runtii waa arrin farxad gelisay anna taa ku taageersanahay inaan isgarab taago oo aan aqal aan ka qayb qaato arrimaha caafimaadka marka fact waa ku faraxsanahay mar labaad ma celinayaa maanta waxaan ka hadlayaa haddii la ka dhigo guud ahaan cudurrada ku dhaca xubnaha dheefshiidka intaan cudurrada ka hadal marka hore isweydiina su-aasha ah maxay yihiin xubnaha dheefshiidku xubnaha dheefshiidku waa xubnaha ka qayb qaata in cuntadii qofku cunay la shiido oo jirkii gasho jirkiina ka faa'iidaysto xubnahaas waxay ka bilaabmaan afka way ku jiraan ilkaha iyo carabka iyo qanjirada sida candhuufta waxaa ku xiga hunguriga madow hunguriga waxaa jira hunguri cad iyo hunguri madow kan madow waxaa ku xigta caloosha marka hungurigu wuxuu ku jiraa saableedu ku jiraa caloosha ku xigta iyo xiidmaha oo kala baxa xiidmaha yaryar ama madhara yaryar iyo xiidmaha waaweyn marka dheefshiidku markaan u galo marka qofku cunto cuno intaas waxay ka bilaabataa in la shiido afka marka hore ilkaha calaaliya cuntadii carabkana moogtiga oo masaqeyb ka qaataa iyo muruqaha afka waxaa jira halkaa qaanjidho soo daaya candhuufta ama waxa loo yaqaano caliyada marka candhuufta waxay caawisaa in cuntadii ay noqoto wax jilicsan oo si fudud qofku u lugi karo marka cuntadii la jilciyo oo afkii cuntadii jilciyo candhuuftii jilciso ayaa cuntadii la liqaa kadib hunguriga sii martaa waxay gudubtaa caloosha dhinaceeda waxaa jira dheecaamo ay soo deyso oo ka qayb qaatay dheefshiidka iyo acid loo yaqaano hydrochloric acid marka labadaasiba yar waxay qayb ka qaataan in cuntadii la cunay la shiido marka cuntooyinka qofku cuno waxay ka kooban tahay waxyaalo fara badan sida borotiin oo kale waxaa loo yaqaano carbohydrate waxaa loo yaqaano dufanka baruurta marka markay caloosha isugu tagaan dhammaantood waxaa shiida
dheecaano u gaar ah mid walba shiida borotiinka dheecaan baa jira u gaara dufanka iyo baruurta waxlamida dheecaan baa jira u gaara oo loo yaqaan lipase waxyaalaha mataqaanaa loo yaqaano carbohydrate ee sida bariiska ama baastada kuwaana dheecaana jira ina shiidaan marka intii caloosha ku jiraan markii wixii la shiido caloosha way cuntada ka baxdaa waxay qaataa ilaa 2 saac bay qaata inta la shiidayo kadib xidmahay gudubtaa halkaana dheecaankaa la soo daayaa oo beerka soo loo yaqaano xamayti marka xamayti waxay shiidaa badanaaba wixii dufanka ahaa bay shiidaa waxaa kaloo jira ganaca wuxuu soo daayaa dheecaan qudhiisu isna cuntadii shiida cuntadii markaa la shiiday oo la yareeyey oo la jilciyey oo waxa laga dhigay ayaa waxay u gudubtaa xidmaha yaryar halkaasaa laga shiidaa kadib waxaa lagu daraa dhiigga si markaa jirkii u faa'iidaysto marka cuntadii moogtay halkaa lagu shiidin waxay isu gudubtaa xidmaha waaweyn ama loo yaqaano mindhicirada waaweyn bay isu gudubtaa halkaan wixii biyo ahaa ayaa laga saaraa soo garan wixii markaa soo haray oo qashin ah oo saxaro ah oo biyo laga saaray ayaa jirka dibadda uga soo baxaa marka intaas gudaha waxaan kusoo koobay qaabka cuntada loo shiido dheefshiidka wuxuu yahay iyo xubnaha ka qabanata marka haddaan usoo galo cudurada ku dhacay dheefshiidka waxay ku dhici karaa cuduradu afka hunguriga caloosha xidmaha yar mindhicirka iyo kaweyn marka waxaa jiri kara inta badan cudurka waa waxaa badan 4 qaybood buu badan yahay inuu noqdo cudurkii waxa loo yaqaano hurgun ama inflammation baa ku dhici kara in meeshii caabuq ay ku dhacaan xidmaha qaarkood oo loo yaqaano infection baa iman kara waxaa jiri kara waxa loo yaqaano buro baa kasoo bixi kara xubnihii dheefshiidka iyo wax lamid ah marka waxa u badan dadka ka cawda badanaaba waxa weeye waa 2 arrimood waa dheefshiidkii oo xumaaday qofku cunto cuno cuntadii uu dareemayo aan la shiidin oo markaa qofku mataqaana isku arkayo dibiro iyo culays fara badan maadaama moogtii dheefshiidka xumaaday iyo xanuun uu qofku mataqaana ka cabanayo caloosha oo la xidhiidha xubnaha ka mid ah oo xanuun soo gaaray marka inta badan waxaa laga cawda waxa loo yaqaano gas ereygan gas ama hayaan caadi ahaan waxaa looga jeedaa waa erey la soo gaabshay caloosha waxaa loo yaqaanaa gastry marka luqadda laatiinka loo eego waxaa loo yaqaanaa gastry marka gastrigii baa la soo gaabshay waxaa laga soo qaaday gas marka gaasku waxa weeyaan xuubkii caloosha ayaa waxaa soo gaaraya dhaawac marka dhaawacaas wuxuu noqon karaa 2 in xuubkii huro oo xuubkii soo gaaro waxa loo yaqaano inflammation ama loo yaqaano moctar ama loo yaqaano gastritis loo yaqaano ama in xuubkii uu nabar yeesho waxa loo yaqaano moxor ama loo yaqaano ulcer marka labadaasiba waxay leeyihiin calaamado lagu garto oo u gaara caloosha ku dhaca iyo ku dhaca xidmaha ku dhaca waa tahay tutore dheefshiidku aad ayuu u ballaaran yahay marka la eego afka ka bilaabo ilaa iyo maxay ahayd qashin saarka meelaha ay ka soo baxaan inta badan ramadaan hadda waa soo socdaa oo waqtiyadii waxaa la joogaa dadka inta badanna dareemayeen in dheefshiidkooda xoogaa culays uu soo fuulo maxaa kula talinaysaa ramadaan isbuucyo kadib haddaanan dhihin 2 isbuuc kadib ama 3 isbuuc kadib ramadaan ayaa lagu dhex jiraa marka dhegeystayaasha maanta la daawanaya ama na dhegeysanayaba maxaad kula talinaysaa waqtiga ramadaanka la joogo in ay isticmaalaan ama foodkooda sida uu noqon doono wallahi axmed fact waa su'aal aad u fiican waa waqtigeeda ku habboon bay joogtaa muddo waqtiga loo baahnay su'aasha dadka jawaab u helaan waana su'aal u baahan in badan lagu ogaado runtii waa bishii ramadaan khayrka badnayd baa ku soo foolla waa bil barakaysan ilaahay hana gaarsiiyo ilaahayna moogta cibaadada hana ka aqbalo
horta fact waxaad ogaataa waxaba ilaahay amro ama ilaahayna faro waxaa ku jirta xikmad iyo waxaa ku jira cilmi ilaahay ummadda ma dhibo wax kastoo ilaahay marta uu faray waxa weeyaan waa waxa ummadda faa'iido u leh marka bisha ramadaan oo bil fadliga khayr baa ku jira waxaa ku jira naxariis badan waxaa ku jira dembi dhaaf markaan ka hadlo xagga caafimaadka runtii waxa weeyaan waxaa la isku raacay oo laisla qaatay in soonta ay ku jirto caafimaad fara badan jirka biniaadamka caafimaad u leh hataa rag ku takhasusay cilmiga nafaqada ama nutritionka oo kale ama ku takhasusay cilmiga dheefshiidka ku takhasusay markay baaritaan sameeyeen waxay isla qireen in soontu ay u leedahay faa'iido badan qofka jirkiisa waxaynu seenahay qofku intuu ay mugtay muddo 10 bilooda ayuu qofkaas soo cunayay marka waxaa cunayay jirkiisii ay gelayeen jirkii baa keedinayay kayd bay ku jiraan marka bisha ramadaan waxaad moodaa in jirku u baahan yahay wixii la keeday in la sarrifo oo la isticmaalo jirkii laga saaro marka ifaatu waxa weeyaan mugtay dadku ay dhibsadaan maaha waxa weeyaan jirku caadi ahaan markuu cunto cuno cuntooyinka jirka soo gala waa la qaybshaa waxaana jirka isticmaala oo energy ka dhigta oo qofku marka intaa urdayo oo muruqay shaqaynayaan habeenkasta markuu hurdo neeftaa qofku neefsanayo wadnaha shaqaynaya waxaasoo dhan energy bay isticmaalaan waxna waa la keediyaa oo jirka keed ahaan baa loo isticmaalaa moogta baruur baa laga dhigaa marka wixii markaa keedka laga dhigay bisha ramadaan oo kale jirka isticmaalaya marka qofku sooma yahay waqti badan sooma yahay kaydka ku jiray dufankii baruurta ku jiray ay jirka isticmaalayaan marka faa'iido bay u leedahay laakiin su-aasha waxa weeyaan caadi ahaan waxaa la eegaa qofku waxaa cunay ee jirka soo galay input iyo outputkii wana isbar is leekaadaan haddii qof maanta uu soomanaa oo jirkii energy ka baxay oo jirkii wixii ku jiray kaydkii uu isticmaalay laakiin markuu afuro intii la dib u cuno oo hilib iyo bariis iyo baasta iyo kabacis ku bixiyo waxa weeyaan halkii buu ku taagan yahay marka faa'iidada la doonay lama helin waxa fiican bisha ramadaan qofku inuu ka faa'iideysto oo jirkiisii kii cholesterol qabay kii macaan qabay kii buurnaa ee mataqaana ama cayilnaa soo garan waa chance fiican oo qofku bisha ramadaan uu miisaankiisa ku dhimi karo soo garan laakiin bishard waa markuu afuro aanu dee in badan aanu cunin oo hilib iyo saambuuse ka dhigan iyo dee maartay soo garan waa taa doctor sidoo kale Sweden maanta Soomaalida ama muslimiinta ku noolba soonka waxay soomaan waqti aad u dheer qaab ku cunaana cuntadiina aad ay u adagta oo hal mar ay qaataan qof maanta idil soonaa waqti dheer soonaa oo haatana waxaa macquul ah in afurka uu haysto 3 saacadood ama 2 saacadood ama waqooyiga dadka ku noolna ay haystaan daqiiqado cunto intee la iga cuni karaan iyagoo fursadooda yar tahay macquulta hal mar inay cunaan cunto noocyadee ayay cunayaan oo بريت صونك يا صومال هاي وقت قدر كوبح سنكران. مرتفعات وريد يمكن كحظي حوالي شركة كيدا كشرة. صارا. وقف سوبر وقف سومية هاي شركة كشرة كيدا كشرة بدر استعمارية. مركا وقفكم أفرو كيلو جارو وحاف عن إنه كل بلابه وحير وسكر وطهي. صارا. إذا كبدر عمرت وحلوة أفرا بدر عمرت تمر بالو أفرا. وحكوش حكمة. ويسمرت وحكوش سكر. قفكي صومرا markuu timirku afuro waxa weeyaan markii energy-gu baahnaa sokortu baahnaa ayuu helayaa moogtay markii timirku baa kacaysa markaas iyo tartiiba inuu waxyaalo sokor ku bantay ku afuro waxyaalo fudud oo caloosha shiidi karto maanta caloosha baa xidhnayd marka inuu ku bilaabo wax adag oo hilib oo kala ay loo baahna waxa weeyaan inuu ku bilaabo wax moogtay sokor ku bantay wax fudud magaranaysa shurbado kale oo caloosha shiidi karto talaabo أنا عايش بالحين صابرا مركا إسكال عشان واحد موقت الدفون كل بدين هاي أما شيلان وكلام طبعا أمس وأي عروشي ولد موقت ما يجار وقت هاي كل شيء ده وحاف عن مرة بنت وحرفوت إنه استعماله إلا تلقاريو هذا سعيد كويهين ووقت بدنا مشترين ونستدى موقت مرة بيرو فضوت
oo kooban oo tabar badan energy badan ku jiro. waa tahay titore haddaan ugu gudubno arrintii ramadaanka sida guud ahaaneed titore waxaa macquul ah cudurrada ku dhaco dheefshiidkoo kale waxaa ka mid ah qofki inuu dac qurun badan isku arko ama laabjeex marka labadaas oo inta badan ee bukaanka isku arkaan maxaa keena qofki inuu dac qurmo ama laabjeexuba labaduba maxaa keena? In fact waa laba arrimood kala duwan waa laba arrimood moogta aad u kala duwan weeyaan. laabdilaaca waxa weeyaan waxaa keena inta badan xanuun ku dhaca waxaa loo yaqaan inflammation ama moogtaar ama moogsor xanuun ku dhaca caloosha ay badanaba keenaan. waayo waxaa moogtaynu sheegnay caloosha xuub bay leedahay, xuubkaas wuxuu soo daaya waxaa loo yaqaana xab adag ayuu soo daayaan. marka xabkaasi wuxuu ka difaacaa xuubkii caloosha in calooshii dhaawac soo gaadho. marka inta badan haddii xuubkaasi dhaawac soo gaadho ama xabku ha yaraado ama ICU ha badato soo garan waxaa imanaya markaa meesha loo yaqaano hurgum ama caalir ku dhacaya xuubkii caloosha. marka ICU badatay waxay keenaysaa in naqaskaa ICU uu soo baxo uu xagga hunguriga u soo baxo. marka hunguriga afkiisu badanaa ma laha sida caloosha kale gidaar adag ma laha. caloosha waxay leedahay gidaar adag bay leedahay oo ICU ka ceshay inay mugtaqaanaa qofku xanuun dareemo. haddii markaa ICU bukhaarkaa soo baxo oo hunguriga afkiisa yimaado hungurigii ma laha saa sheegnay xub ka cesha marka wuxuu dareemayaa kulayl meeshii gugubanaysaa gubashada waxboogta waxaa dareemayaa laabdilaac waxaa loo yaqaana halsbrenda dareemayaa. sidoo kale marka mataqaanaa calooshii xuubkii caloosha u dhaawacmo oo nabar yeesho loo yaqaano moogsor ta qudheeda waxay keenaysaa in qofkii laabdilaac isku arko. dadka buno qudhooda maxaa dhaca ama qofka uurleeda maxaa ku dhaca waxa weeyaan culayskii caloosha ayaa wuxuu kor u qaadayaa calooshii buu riixayaa. markuu calooshii riixo afkii hunguriga ayaa wuxuu dareemayaa dabacsanaansho kale. afkii hunguriga ayaa wuxuu noqonaya wax dabacsan maadaama culayskii ama naagta marka uur leeda oo kale qofka aad u buuran oo kale waxay moogtay calooshii bay ku riixayaan. calooshii ku riixaan hungurigii waxaa markaa moogtay afkii hunguriga calooshii la xidhayay ayaa wuxuu laga dareemayaa xoogaa ama dabacsanaansho kale ah kadib qofku dareemayaa laabdilaac saa moogtay ku kartaa. laakiin daaqoranka waxa weya ku duwan tahay tan waxayaan caadi ahaan wanaka sheegnay marka qofku cunto cuno ilaa 2 saac ilaa 3 mar ayaa badanaa moogta cuntii la shiidaa. haddii markaa cuntadii meeshii ka bixi weydo oo ay gudbaydo moogtii xidhmada gudbaydo waxa weeyaan waktigii loo baahnaa haddii ku dhaaf weydo waxaa ku dhacaya isbedel ku dhacaya meesha markaa bacteria meeshii iman karta soo garan marka cunto mataqaanaa dee khamiirin karta. marka arrinka wuxuu keeni karaa in cunto markaa ay urto oo qof markaa dee caquurin dareemo moogta waa arrin la xidhiidha dheefshiidka. laakiin laabdilaac inta badan waxaa la xidhiidhaa waa xanuun soo gaadha caloosha ama xuubka caloosha oo dhaawacma ama xoqbo oo kale barbi. waa tahay titore su-aasheeda xigtaa waxay noqon doontaa hadduu ebeedma waxaa jira in qofkii saxarada ku adkaato ama waxaa loo yidhaahdo constipationka oo kale iyagiina maxaa keeno qofkii in saxrada ay ku adkaato oo isbuuc ama 4 maalmood ama 2 maalmood ama in muddo ah qofkii inuusan saxroonin constipationka oo kale maxaa keeno in qofkii oo saxrada ay ku adkaato? si loo cunto cuno waxay moogtay caadi ahaan saxrada qofka imanaysaa waxay la xidhiidhaa cunto qofka cunay noocay tahay. waxaa jira cuntooyin badan taqaanaa oo loo yaqaano ku badan tahay loo yaqaano buushaha ama loo yaqaano caloosha aan shiidin مثل بريسكو كلا iyo baasada kale iyo magaranaysaa ruusta kale inta badan waxaa ku yar waxaa la yaqaano fiberka baa ku yar marka markii waa la shiidaya markii waxaa jirkaa shiidaya markiiba marka waqti waxay keenayaan in saxarada markaa adkaato laakiin marka qofku cuno waxay ku batay fiberka caadi ahaan markay xidmaha gaadhaan badanaa lama shiido markaasi waxay keenaysaa in markii saxaradii kwantigeedii uu bato sagaran xarakaadkii calooshana mataqaanaa peristaltiskiina uu bato markaas awgeed qof markaa markii calooshii markaa ma istaagayso laakiin qofka markii cuno fiber yar cuno ama khudaarta yaraysto kale biyaha yaraysto kale waxaweyaan waxay keenaysaa in saxaradii ay adkaato maadaama mataqaanaa aynan jirin biyihii saacidii maarta inta badan waxaan ku talin lahaa qofku inuu qaato cuntooyinka ku badan tahay
waxa loo yaqaano fiberka ama buushaha soo oran waxaa jira fruutida mataqaanaa loo yaqaano pork bread oo kale baa jira almost baa jira wax ku badan fiberka soo oran markaa waqti waxay ku xirtay kolba caloosha fadhida nooca qofku cuno cunto ay tahay ku xirantay marka aad marka constipation uu qabiyaa wuu isku arkay ama haatan buu yahay sidoo iskaga soo saaraya marka ma in uu lasatif wixii la dhihi jiray cuntooyinka furo haddii ay gaadho heer qofka markaa mugti saxarada aad kaatoo dhagaxoodo taa wadi mugti rafar buu la xidhay diduu siinaya mugti laakiin waxay mugti caadi ahaan sida ugu fiican waxay qofkii mar walba ka hortago wixii oo aanu mataqaana chance badan siin in wixii ay adkaadaan laakiin marka mugti qofku u baahdo wax mugti laxfel siiyo goor ay saxarada noqotay dhagaxooday oo soo bixi kari weeday markaa mataqaana u baahan dimaarkii laakiin waxaa ka horeysa koortaga ka fiican badanaba in afkii diiwayo aad doctor waxaa kaloo jirto laba arrimood oo bilcagsi isku ah oo dadka isku arkaan inta badan in qofka uusan baahanba cunto inuu cuno oo caloosha iska dhaxfaninayso cabaar uusan ama uu dareemayo in cuntadii calooshiisa ku jirto cuntadii uu soo dacsanayo iyo in qofki uu baahi badan hadduu cunay isla haddana wuu rabiya inuu cunto cuno arrimahaas oo kale qofka caafimaadkiisii okay ma qofkaas fact waa su'aal fiican marka si looga xeero marka qofku cunto cuno cuntaa weli soo wala shiidaa moogtay horta gaajada dhirta waxaa laga xukumaa maskaxda badan xukunta gaajada dhirta maskaxda xukunta moogtay caadi ahaan qofku inuu gaajoodo inuu haraado inuu mataqaana dareenka mataqaana inta badan waxay maskaxda ayaa xukunta marka qofku cunto cuno maskaxda waxaa loo dirayaa waxa laga qaado dareen ama signaal baa loo dirayaa moogtay soo garan tii waxay keenaysaa in caloosha markaa isku diiso dheecaanadii xashidii ICD enziimadii hormoonadii qayb ka qabqaadanayay marka markasta moogtay waxaa muhiima qofku cuntada cunayo qaabka uu cunayo waqtiga uu cunayo isuu cunayo moogtay haddii markaa qofku cuntada cunay ay ka badan tahay intii dee loo baahnaa matalba soo garan way kala bataan dheecaanadii dheefshiid ka qabqaadanayay iyo hormoonadii shidii iyo cuntada cunay kala bataan iyo khasab waxaa markaa dhacaysa in qofku cuntadii waqti badan ku jirto waayo moogtay energy badan buu u baahan tahay waxaa kaloo moogtay muhiima haddii qofku mataqaanaa waqtiga cunaya udhexaysa interval udhexeeyo ayaa muhiima marka tan dirigta moogtay qofku dirigsan waxaa ku xiranta marba cuntada qofku cunay nooca ay tahay iyo sida maskaxda mataqaana soo shaqeeyaan maskaxda iyo mataqaana ay magaranaysa dheefshiidka waa inta badan xubnaha dheefshiidka moogtay waxaa xukuma maskaxda dhirigta shubanka gaajada alla fadhiga dareenka markaa qoba dareenka suuya u dhow qayb ka qaataa haddii qof mataqaana murugisiya kale ama qofka moogtay naxsiyaha kale qofka waxay dareenka maskaxda kolba say tahay barba waxay moogtay qayb ka qaataa maartay dheefshiidka qofka aad iyo aad marka tutora aanu ka bixi doono inta badan caloosha shiidideedii organada caloosha kaabo dhacaanka ama kan u gudbi doono su-aasheeda ugu dambeysa oo intaan ka gudbin caloosha waxaa macquul qof inuu isku arko aray tiro badan xaggee ka yimaadeen aryadaas wallahi fardi arayda waqti badan waqti waxay caadi ahaan midna waa caadi oo dabiici midna waxa weeyaan waa xanuun qofku marka moogtay cuntada cuna moogtay diin taqaana canuf badan ay gasho oo canuf badan dhaqo canuftaa qofku dhaqayo badanaa moogtay hawa raacda canuftaa moogtay qofku dhaqayo marwalba haw baa la socota moogtay marka hawada markii moogtay gudubto xiidmaha gaadho waxay ku abuuraysaa xarakaadka moogtay ogaa dibro kale bay keenaysaa waxaas markaa moogtay dhibaato ma jirto waxaa dadku iska daaco ama neef dhib ma leh laakiin moogtay waxaa jira mararka qaarkood cudurro qofka mataqaana ay ka maqantay jirkiisa enzyme loo yaqaano lactose oo kale taas oo kale haddii marka qofkaasi uu cuno ama cabo waxyaala moogtay caanihii mataqaana ay ku jirtay magarasa ku jirtay lactose oo kale taa waxa weeyaan markii calooshii markii caanihii xiidmaha gaadhaan halka waxaa ku sugan waxa loo yaqaano bacteria marka bacteriadaas maadaama enzyme-kaasi maqan yahay waxay keenaysaa in qofkii markaa markuu caanihii cabo maadaama mataqaana dhacaankaasi meesha ka maqan yahay loo yaqaano lactose inuu dibro badan isku arko neef badan isku arko daaca badan isku arko soo marka labada moogtay mid marna waa caadi waa canufta qofka dhaqay kufartaasi dib mala marna waa xanuun oo la xidhiidha ama dhacaan ka maqan jirkii ku maqan ama bacteria jirka ku badato kale ama gooryaan ku jiro kale moogtay baa jira ama amebo kale keeni kara dibro keeni kara marka taa ku dheer waxay qofku inuu isku arko isbaaro
oo dhaqtar la xidhiiro markaa haddii ama dee isu ogaado in mugti dhacaan ka maqan yahay loo qoro ama lagu taliyo inuu cabo ama caano ay ka maqan tahay lactose ayadoo qaran mugti lactose free oo kale markaa isticmaalo markaa mugti dii la ogaado inay maartay uu xanuunkaa qabo. waa tahay su-aasheeda xigtaa tutoora inta badan caloosha waxaa kaalmeeya in cuntadii ay shiido ama qanjiradan ha noqdaan oo soo saaro candhuufta soo saaraan ama beerkii bankariyaaskii waxyaabaa tiro badan ayaa kaabo marka inta badan processka intee soo maraan dheefshiidkaas inta process beerkoo kale kaalinta intuu ka qaataa wixii qofkii tusaalow kale beerkii inta anagoo u gudbin kaalimaha ee soo marmaraan oo qofkii dheefshiidkii ilaa iyo qashinsaarkii ee soo baxaan ama kaadii noqdaan iyo wixii bal xoogaa taas faahfaahin guud naga sii sidoo kale dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa intana daawanayso iyo intana dhegeysanaysaba in telefonka shaashada ku qoran inay naga soo wici karaan tutoorkana su-aalahooda ay weydiin doona hay tutoor xaggan dheefshiidka marka ku bilaabay waxaweyaan caadi ahaan marka qofka cunto cuno waxaweyaan waxay soo martaa mugtii boros dheer bay soo martaa marka hore qaanjahan carruurta mugtii sudaan waxay yaqaana saliif ama caliyo soo daayaan si cuntada taqaano oo noqdo wax jeelsan oo dhaqan karo markay caloosha soo galaanna mugtii caloosha caadi ahaan ilaa 2 jira timir ay badanaa mugtii calooshii ku jiraan umas markay xidmaha u gudbaan marka xidmaha waa laba nooc waa xidmo ku dhegan caloosha ku dhegan waxaa loo yaqaanaa 12 tarm finger waa waxaa loo yaqaanaa gudan taa waxaa kusoo shubma waxaa loo yaqaanaa gaal waa xamatida soo garan oo beer ka timaada oo xamati haysta lagu keydiyo iyo dhicaan ka yimaada mugtii bankriaska ka yimaada soo garan oo isna qayb ka qaata inuu shido wixii ahaa carbohydrate ahaa ama dufanka marka inta badan ayaan dhowr saacad bay qaataa process ka qaataa farba calooshii xidmaha loo yaqaano godanta ama loo yaqaano 12 tarm finger ama loo yaqaano duodenum kadib markaa mugtii xidmaha udhisa mindhacrada udhooda baa 2 group noqonaya qayb sare oo yana mataqaanaa sii shiida wixii taqaanaa ormas nafaqa ah iyo in dhiiga lagu daro marka caadi ahaan adigu waxay qaadataa mugtii ormas ilaa 6 saacadood markaa qaataa mugti laakiin markay gudubto xidmaha gudubto ilaa ka baxayso waxay noqon kartaa 12 timir bay qaadan kartaa ya waa tahay haddii markaa xanuun jirin qofkii xanuun kale qaban ama dee dhibaato markaa xagga dheecaanada ku dhoodaan yarayn oo kale ama xanuun dee calooshii ama mindhicirkii ama beerkii ama magaranaysa aan jirin qofka caadiga ah waxay waa tahay tutoor organada anagoo inta badan aan geli doonin laakiin inta muhiimka ah oo caloosha ka qayb qaataan soomaalidana inta badan ay ka xanuunsan yihiin ayaan geli doonaa tusaale kale beerka haddaan soo qaadano inta badan qofka bani aadamka inuu beer ka xanuunsadaa maxaa keena in qofka bani aadamka la dhaha beerkaagii ma shaqeynayo in beerkii shaqada uu gabo maxaa ka mid ah cudurrada keenoo kale maxaa ka mid ah beerku infact waa xubinta ugu weyn jirkeena waa xubintii marka jirka laga mugti ugu weeyaan waana motoorkii bini aadamka waana mashiinkii qofka mataqaanaa inta badan waayo bangigu waxa weeyaan waa beerku marna wuxuu shaqeeyaa waa bangi oo kale mugti wuxuu keydiyaa waxna uu sarrifaa soo garan aniga mugti marka qaarkood wixii markaa jirka u baahan oo kale hadday tahay sokortii brotiinkii dufankii oo kale beerkaa loo keydiyaa marna waa sarrifa mugti waxayaan wuxuu soo daayaa dheecaano fara badan brotiino badan oo ka qayb qaata in jirka laga saaro wixii sun ah la safeeyo la keydiyo dheefshiidka ka qaata marka cudurrada ku dhici kara beerka inta badan waxay noqon karaan cudurkeena waxa loo yaqaano virus baa keeni kara loo yaqaano hepatitis virus oo ah virus O B C D iyo waa ka badan badanaa mugti ee ku dhaca dalalka soo koraya oo runtii mugti dhibaatooyin ku haya kolleydii waxay cudurrada beerku waa barnaamij u baahan waqti gaar ah ma aha mataqaanaa wax hadii usoo koobi kara mataqaanaa daqiiqado maaha laakiin cudurro badan ku dhacayaan waa virus baa ku dhici kara waxaa jira cudurro kale ay keenaan badanaaba khamriga oo aada loo cabo kale mugti ormas oo keena waxa loo yaqaano cirrhosis soo garan oo dadka khamriga cabo mugti dhib ku haya waxaa jira bacteria keeni kartaa inay beerkii mugti ormas waxaa jira waxyaala kiimika ah
dawooyinka qaarkood baa ina keeni karaa beerka dhaawac keeni kara oo kale marka waa infact beerku isagu waa organ u baahan in maalin gaar laga sheekeeyo dib taqaanaa maartay aad iyo aad tutore waqtiga una soo haayo oo barnaamijyo kale ah ee haatan nagu xigaan su-aasheeda u dambeysaa aan ku weydiinaya waxay tahay isaan rajeynayo inay u dambeyn doonto maadaama waqtiga nagu yar yahay maxaa keena maxay ahayto in qofkii ku dhaco qabsan in qofkii maxay ahayto la yidhaahdo mandhicirkii ayaa xirmay hebel mandhicirkii xirmay ama in la jaraa maxaa keena qabsanka wariyahana Jonas Khalifan inkastoo barnaamijku nagala qayb qaadan doono ergada qabsi markaad leedahay marka mugti afsoomaaliga markaa laga hadlayo qabsin erebixinta mugti waxay way ka duwan tahay mindhicrada waayo qabsi badanaa mugti waxaa loo yaqaana waa cad yar oo ka lusha halkay mugti ku dhimaadaan mataqaana mindhicirka yarku si galaan mindhicirka qabsiga soo garan waxaa loo yaqaana appendix kaasi waa cad yar oo sida maska sida u samaysan sida gooryaanka kale oo fartaa la eg kaas markuu caabo ku yimaado waxaa loo yaqaana appendicitis soo garan kaabadana waa la jaraa kaasiba mugti dhibs waxay mugti xanuun buu keenaa afkaa laga jirin dib waxay mugti dhirta afka ku dalaacdo mugti kasbaa gooni laakiin taa sheegaysid waxay waa mandhicirada waayo mugti waxaa marka qaarkood mugti waxaan waa tuubo aniga sheegno mugti waxaa loo yaqaanaa moctar canal waa tuubo cunto mariso soo garan marka wax kastoo halkaa xiri kara tuubada xiri kara waxay keeni karaan in mugti cuntadii istaagto ha noqoto cudur gudaha ka dhashay oo buro oo kale noqoto ha noqoto cudur dibadda ka yimid oo calaadiyey xidhay tuubadii xidhay ha noqoto taqaanaa nabar intuu mugti ku dhacay xidnihii bogsaday oo meesha isku xidhay wax kasta oo tuubada halkaa maraysa xidhaa soo garan waxay keeni kartaa in tuubadii xidhanto marka in la qalo waxay mugti keenaysaa markii tuubadii xidhanto dee cuntadii meeshii maraysa istaagaysaa markaa si loo furo markaas marka sababta la ogaado marka wax kale la baaro la ogaado dee la gasho discobi la gasho ama dee raajo lagu sameeyo markaa la ogaado kaaska la ogaado haddii waxaas akudiina dee waxay mugti waa la qalayaa waa akud waa dibaddigtahay haddii waxay tahay wax la daweyn karo dawooyinka loo raadin karana waxay markaa tabadana mugti waa labada arrimood weeyaan qabsanku waa kaan kuu sheegay waa cadkaa yar ee ka lusha halkay xidma ku dhimaadaan waxaa loo yaqaana appendix markuu caabuqo waa la jara kaas ka kale waxaa ku dhaca mandhicirada kuwa xidhbaa mugti waa kuwa mugti arrin gaar ah Jonas دكتور كذا بنسيها دكتور سؤال كتبت دكتور عن كوريا من الكويت وحليها بش رمضان ما دام لا تكون رمضان خويجا يوروب waxay Soomaan muddo aad iyo aad u dheer oo ilaa iyo 19 saacadood wax caafimaadkooda dib ku keeni karaa ay leeyihiin dadka wareegsan soo qoray taas waa su'aasha koowaad talabaadna waxay leeyihiin in la isbaaro khatar la xiriiro muhiimad weyn ma u leedahay qofka ibn aadanka jiritaankiisa iyo caafimaadkiisa haddii hataa uu markaa uu caafimaadkiisa boqolkiiba boqol u yahay uusan wax xanuun ama markaas uu dareemayn su-aashaas labada su-aal aan ku hormarina fact almost social weydiiyey waxaa weydiiyey infact soontu mar walba waxa ilaahay muddo amray weeyaan ilaahay abuurada mugti soonta amray ilaahayna waa raxiim ilaahay waa raxiim ilaahay runtii mugti wax dhibaateena ku ah ilaahay mugti ku ah mugti fari maayo soo garan caadi ahaan qofku markuu sooman yahay waxaan sheegay jirkiisa waxaa ku jira kayd baa ku jira cuntada ku cunayay jir ku jiray ayaa kayd baa ku jira marka kaydka ku jiray waxa weeyaan wuxuu isticmaali karaa markuu sooman yahay marka waa bararka qaarkood waxaa la isku raacay dhakhaatiirta ku takhasusay cilmiga nafaqada nutritionka waxay ogaadeen in soonta ay ku jirto faa'iido gaar ahaan dadka buurbuuran dadka dhikarka qaba dadka kolestarool ku badan tahay waayo waa jaanis ay ku dhibi karaan miisaankoodii kolestaroolshay ku dhibi karaan soo garan markaa jirkii energygii kayd ku jiray buuxay ay jirka mataqaana soontaa soomahay ay isticmaali karaan marka waa output faa'iido u leh marka waxayaan runtii waxaan isku raacay inay tahay faa'iido weyn oo ku jirta mugti xagga caafimaadka waan gartay su-aasha labaad iyadana ahayd tan baaritaanka qofka hadduu dareensay inuu iska caafimaad qabo oo marka aanu mugti wax calaamadaha isku arkin oo muujinayn wax xanuun ku jiro kale ama aanu
hadduu shalay caadiiska ahaa haddana jirkiis ku arkin wax xanuun ah ama miisaanka soo su dhacaya ama daal ama xumad ama madax xanuunsa jirin waxaan aaminsanayay mogti baaritaan inuu kusidigaa mogti muhiim ah barde waxa mogti dee aan jirin calaad muujinay inuu xanuun ka shakiyo xanuun qabo qofku ya su-aasha xigta waa leeyihiin dhegeystayaasha maxay ku kala duwan yihiin dhakhtarka guud iyo dhakhtarka qalinka su-aal iska fudud jawaabta fudud tahay markuu dhakhtarku jaacadda ka baxo oo jaacadda dhameeyo waxa weeyaan dhakhtar guud buu noqdaa waa alman lekare ama mogta loo qaado g b ayuu noqdaa badanaba markuu g b ka baxo ayuu markaa takhasus sii galaa hadduu qaliin noqonayo hadduu noqonayo taqaanaa ortopedkii lafaha noqonayo hadduu noqonayo cardiolog kii wadnaha hadduu noqonayo neurolog markaa kadib markaa takhasuska lakin waxayaan dhakhtar guud waxayaan waa marka shahaada laga baxo shahaada horeysa la qaato waa waxayaan waa g b dhakhtar guud muutaha soo hore markaa dhakhtarka guud aqoon leh oo cuduradii guud dumarkii caruurtii baaritaanka guud muurtii cuduradu leeyihin hadduu markaa kadib waa takhasuska dib markaa gaarkaha markaa specialization markay gelayaan waan garatay insha allah su-aasha kale ugu dambeysa aan gacanta ku hayn waxay tahay maandoodayaasha la isticmaala haddaan kala qaadno qamriga qaadka xashiishka shiishada ma dhaawac khaas ayay wadaagaan may dadka u geystaan mise maandoori walba qaas dhaawac qaas ayuu shaksigu ibni aadamku u yeelaa jirkiisa caafimaadkiisa infact waa su-aal fiican mota heerta maandoorihu waxayaan wax kastoo maandooriya mogta loo yaqaana maandoorihu aad iyo marka iyakaa kala duwan qaarna waxa weeyaan waa qaar keeni kara loo yaqaano addiction ama barwanje qofkuna mogta qaarna uu noqdo la qabsado mogta qaarna waa qaar keeni kara dhaawac toos oo jirkii keeni kara mogta masalan khamrigoo kale hadaa soo qaadano inkastoo isagu mogta qofku la qabsadaan haddana waxay keenaa dhaawac xagga beerka ay badanaba keenaa waxaa loo yaqaano saruus in beerkii taqaanaa dhibaato u keeno beerkii mogta taharoobo ay keentaa laakiin dawooyinka kale taqaanaa kul yaqaano narcotiga iyaku waxay leeyihiin dhibaato ah qofka noqonayaa mogta burwande ayuu noqonayaa markaa mogta waxa duug waayo dhul mogta waa dib ay u keenaysaa mogta caabaska xagga maskaxda laakiin sigaarka iyo shadoo kale iyo iyaku waxay leeyihiin dhibaatooyin xagga magaranaysaa sababka iyo taqaanaa iyo hawo mareenka ay dib u leedahay oo inay ka sar karto mogta sababadoo kale ama lufta garka oo kale ama dhib soo gara marka mid walba dee dhibna wey laakiin waxaa u daran kuwa loo yaqaano narcotiga oo markaa mogta kadib taqaanaa maskaxdii dhooca gaarsiiya oo markaa keeni kale qofka mogta duuxi waayo in dhibaato mogti xagga caabaadkii is diristo aad iyo aad su-aalaha hadda iminkaan fasaxbayayaan aad iyo aad yones aad aa umahadsantahay yones ayuu ahaa oo inoo soo koobay su-aalihii dadweynaha na soo weydiiyeen tutore gunti iyo gabagabadii marka adigoo soo koobay aan muxuu ahaa barnaamijkeeni soo guud maraysid ama samarigii u dambeeyo muxuu noqonayaa infact waxay rta marka hore waxaa kasoo gabagaben lahaa talayaroo soo jeedinaya bulshada soomaaliyed mela joogaanba maadaama maanta aynu ka hadlayno dhirrid ka hadlayno waxaa muhiim qofku inuu mar walba maskaxda ku hayo energy-ga uu isticmaalayo oo inputkii jirka soo galay iyo wixii ka baxay inuu isleekaadaan waayo waa habka ugu fiican qofku mut keli karo mugti inuu caabaad keli karo haddii ay kala bataan qofku mugti intuu in bato badan cuno aanu jirkii gubin ama jim isticmaalin ama jirkii gubin waxay keenaysaa in qofkii mugti naaxo oo ay kala bataan inputkii iyo outputkii marka taa mar walba mugti waa ugu digaa bulshada soomaaliyeed inay almost ku dadaalaan inay ogaadaan waxa isticmaalintii leeg tahay iyo waxa ka baxaytii leeg tahay marka inay socodka badiyaan inay jimka badiyaan si markaa mugti energy-ga soo galay loo gubo aynu beri ka baanin aynu u keenin qofkuna dhiikar qaado kolestaroshi badato qofkii naaxo wadna xanuun yeesho macaan qaado iyo arrimo laba mugti marka mar walba waxaa ku tali lahaa inay cuntada iska yareeyaan way laba arrimood waa caafimaad laba arrimoodna waa cudur taa mugti waa inay dadka fahmaan laba arrimood waa cudur laba arrimood waa caafimaad cunto yar socod badan waa caafimaad cunto badan socod yar fadhi badan waa cudur marka taasaa mugti muhiima aad iyo aad aad iyo aad ad umahadsan tahay doctor
aad iyo aad u mahadsantahay tutore kaasi wuxuu ahaa tutore maxamed xaashi oo barnaamijka caafimaadka nagala qaybnaa tutore isbuuca dambe cudurka kee ka hadli doontaa والله واحد يدك حسين كل مبتدأ وحن شاء الله جلغرة كدعاء وضناها كدعاء أما معانك أما ديكرك يحلم من المبتدأ وقتها هدو إيد بإيد ما وحين قدنا أنت بيش حكتا معانك عذرك معانك وحا كانوا يوقفك وحا وقبت بالك كرا هدو تذكر بحية مبتدأ أديار أنت أيام كسو قابينا برنامج كيني برا عذركاga دكتور محمد حاشي إيو يونس قليف oo su'aalaha dadweynaha inoo soo jeedina mar kale kulantan dambe waxay sidaas iyo nabadgelyo سوري